معاه لا يوريغا أنا وان يردي ذو حاني نكو بريغو هرم وحلو تشوق جري waa sideedii tolo madad hore iyo waxba xumeynaya baan soo barigo hore madad wuxuu la joogay baan isla adeeg ku kulaato maxawiyaan ma garanaysa maxaa imkaan binaadan hela kale la marka hore madad kul ma garanaysa hawlahan waxa intaan u galin kiiskan kaliya maxaa loo baari waayay oo ah in gabadha sababta bistoolad ugu qabto maxaa wax looga weydiin waay boolisku may ka hadlaan ciidamada laamaha ammaanku may ka hadlaan وتقول أنت الله قل يرقل وحرته كدبنا لليه أرمان CID دي وحياة اللي جفا في على سيدا وأنا هرجيسي وحي كده عايز سمعنا أنا جو رئيست نكاس والله يا ري ده أنا CID ده اللي هذا الكلام ما دام أقدر ورئيس بحي وكيري أنا CID ده مرة تلافيك فلاش جرينيس وحنا قاعدي إنسان في تسمع اللي تشري ما دام وير أنت الله يا ري راوي إذا مليت أنا كمان تقاني ده أحسده كلنا 14 سنة كنت شله أفكار مكات استبيا تبحالي markii la soo daay laakiin Xusmi markii la soo daay oo magaalada soo galo Xusmi mar qofkii safiitusmo u naxayay laha war gabadhaas masaakiinta waa la dulmay qofkii dambana aska qaban oo nimcaan ugu horeey mar uu jawaabo iyo mar uu diinta u gafay aduu wax kale inta iska dhaaftaan oo wax kale iska soo tagtaan safiitusmo cabdi cajun muqaala ka duuba laga soo tagay safiitusmo cabdi cajun codad ka soo duubay oo la soo dhigay laga tagay hadda wuxuu maraya inuu diinta u gafo ما تجعلين مقالك أنا وذاك لكن وإن وذاك يا سببتون وحيته إن قف كستو ما أنت عد عجول ضد بالآدم ولا أنا كقصد إن قف كستو عد عجول ما أنت كنت تاجري قبيلات وكسر بان مقالك إن كل وديجة واحد دعوة عد عجول وأنت هيز دارتي مرقاس سوى عبسنا وكذا أحسن أنت هيز دارتي ده هي جبر سومالية في النهار أنا تعلم مقعدين سوقات هيز أنت دقيس ده هي نبيت دي بقت هيز نبيت دي هيز دقيس سبحان الله بالمقال كان داود يمكن كياب دونه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قارت قناة هيك مثلا ملك سوت سلطان سكستو مقالكي دين سو غاري بالكد قداونا سما channel شاع شكيه وانا ولكن شاع شكي كسر ودا برنامج كذا لين تبلشدو aan maanta idin kugu haya arin xasaasi oo ku saabsan tuka xagayjo الله samada jiro salkuna warorsayay ayaan saba kula dhasho hankaygu masuuli karo samada calanka kularan ayaasan ka taagi baray adkayso samir lahaw bilaha soonkay baray wagaag saaxiibayaal sidii aan horay barnaamijyada kooriyeen kugu soo gudbinayaba taniyo markii uu soo ifbaxay muuqaalkii laga duubay safiitusmo abiyuska ahaa iyadoo duurka joogta bistoolada lagu hayay waxaa jirtay arrimo xasaasi ama warar kala duwan oo ka soo baxay xaaladda uu ku sugan yahay tuka xagay jooga isla markaana la soo bandhigay codad sir ah iyo sidoo kale xogo ku saabsan sidii uu falkaasi u dhacay waxaan horay kugu sheegay in Cabdi Cajuun Hargeysa lagu dhax qabtay kadibna xabsiga la dhigay oo sidaas uu ku xiran yahay laakiin kadib maxaa dhacay Cabdi Cajuun xaq ku dambeeyay xaaladiisuna xagee maraysaa Cabdi Cajuun xaaladiisu waxay maraysaa inuu heer gaar xitaa inuu diinteena suuban u gafo isla markaana uu awoodiisa macnaha inta iskala waayo iskala bido sababtuna waxay noqonaysaa kadib markii uu arintaasi geystay waxa dhacday in loo yeero qolada CID oo markii hore waraysiyo u bixi ku taataabtay inta u yeeraan oo xabsi la gariyo la yiri afkaaga dadka aad ka weyso ogow halkan ayaad si fiican leynta ugu cabaysaa deetana iska sii daay magaalada lagu sii dhaxdaayay markii intaas digniinta la sii hadaba ninka odaga ahay markii uu soo baxay waxa uu soo bandhigayaa oo istusaya macnaha inuu yahay nin baawar ku dhaxlay magaalada Hargeysa baawarkiisa ku leedahay Hargeysa muxuma awal waxaan weysanay in arinta safiitusmo iyo laga daba dhiganayo gabadhaas masaakiinta dibku u geystay inuu cadaalad u raadinayna hadda heer wuxuu marayaa inuu diinteena suubaneed u gafo taasina ma ahan wax dadka Soomaaliyeed ee dadka Islaamka haba ay dul qaadan karaan hadaba dadku waxay isweydiinayaan talow ninkan muxuu yahay waa maxase awood intaas leek oo magaalada Hargeysa ku dhaxaysta maxay noqon kartaa iyo sidoo kale markuu nimcaan hilaac iyadana uu sidoo kale u jawaabay intaan u guda galin muuqaalka saadinahay waxaan rabaa markan in la wadaago cod sir ah oo shalay cadayn oo ah macnaha cadayn oo ah inuu muuqaalkii isagoo uu duubay isla markaana hadalkiisii hore burinaysa oo ahayd inuu asagoo safiitusmo ay filim wada jireen bal markan codkiisa aan wada dhageysano iyo hanjabaadii uu safiitusmo adeegsanay mastay iyo waxaad ka samaysan tahay baa soo weynota haddaan dib kula hadlo ku soo waco ilma xaraan baane aniga kiista meesay waa la midkeenayaan wax oranin ثم والله وحول بيك حارسين وحول بوحي حارسين بلا عاشق واطه هي مسكينه بلي بلي ثلاثه دسور بغاسنان و don't care كاني على سمعين ما يعني حبايا ما لو حد ما انت ما كما تقبسن كنت قبس لك ما اقول شيء مره اني كو غوتان كنت سيانو يا والله ان مده كو قيمه والله
sawirayga hayay video iyo waxbiga hayay bal waxa doonaysa dhabalado la cid islaam warku ay sameeyay subax saga dambarta kugu barayo bulacada kaga horta markaan codadkan iyo codadkii kala dhageystay oo Safiitusmo ilaa iyo jala la waday musalsal caadi noqdaba inkastoo aan in la soo gudbin laakiin meelaha laga soo deynay ilaaha waa kan Safiitusmo cabsanaysay horta macna ma keenayso gabar masaakiin oo markii hore muuqaalkeeda aan rabnay inaan dadku u iftiimino ninkan gabadha abuse ku hayay oo xoog iyo hub ku haystay wax macna ma keenayso in codadkeedii maanta la soo wado ilaa waatan waa cabsanaysay codkan soo dirtay taasi dadnimo iyo sharaf iyo karaamanimo iyo ma ahan iyo raganimo laakiin raganimadu waxa ay tahay in ninkan qofkii qoorta ka qaban kara oo qoorta ka qabto isla markaana uu god ku rido si gabadhaasi cadaalad u hesho taas ma la waayo taas hadii la waayo waxa muhiim ah in la soo bandhigo cadeymaha sida codkan oo kale hadda in la soo gudbiyo kale tan waxay cadeyn u tahay hadii hadda maanta Hargeysa uu joogaa ninkaas Cabdi Cajuuna laakiin waxa cadeyn ah hadii codkaas ninkan oo iska dhaaf adig wada dalkii hooyo soo joogsaas yeelayay wada shisheedo joogi lahaa Safiitusmo joogi lahaa isna joogi lahaa wallahi billahi tallahi markii ugu yaraatay 5 sano oo xabsi u qaada lahaa ama 6 sano okay codkaas laga keenay bas iska dhaaf adi muuqaal iska dhaaf soo bisalad ku hay codkaas kaliya hadii laga keeno 5 sano ama 6 sano qaada lahaa waa wax xaqiiqo ah adduunku gabdhaha Soomaaliyeed heer bay aga jiraan meel beliis bay ugu jiraan sharci iyo nidaam bay leeyihiin qofkii u gafaaho in gacan bir lagu qabto laakiin anagu in gabar Soomaaliyeed duur joogta kaamira laga duubaa ninkii kaamirada ka duubay ee bistolada ku hayo aan jabayno oo magaalada ku raaxaysta oo inta loo yeeray iska sii deynay alleeyahay taasi waxay sharax ku tahay Soomaalinimadeen okay hawlahan waxa intaan u galin kiiskan kaliya maxaa loo baari waayay oo ah in gabadha sababta bistolada u qabto maxaa wax looga weydiin waay boolisku may ka hadlaan ciidamada laamaha ammaanku may ka hadlaan waa taqol inta loo yeero qol lagu xirto kadibna la leeyahay arimahan CID iyo waxyaabaha laga faafiyo aalada siida warana Hargeysa iyo wixii ka dhacay Soomaaliland iga wareysta channelkan baxgaa la galay Soomaaliland laga leeyahay aniga wareysta ninkaas waa loo yeeray danaha CID da laga hadla kaliya maadaama uu dhowr wareysi u bixiyo oo ku yiri anigu CID da markay teleefinkii flash gareynays waxaan ogaaday in Safiitusmo la jiri maadaama uu yiri inta loo yeeray Libraawi idan malid inaga mana taqaan dad aan xabsida ku rinaa 20 sano ku jira ee afka ama ka adka stupid tabaxali markii la soo daayay laakiin Xuseen markii la soo daayay oo magaalada soo galo Xuseen mar qofkii Safiitusmo u naxayay lahaa war gabadhaas masaakiinta waa la dulmay qofkii dambana iska qaban oo nimcaan ugu horeey mar uu jawaabo iyo mar uu diinta u gafay aduu wax kale inta iska dhaaftaan oo wax kale iska soo tagtaan Safiitusmo Cabdi Cajuun muuqaal ka duuba laga soo tagay Safiitusmo Cabdi Cajuun codad ka soo duubay oo la soo dhigay laga tagay hadda wuxuu maraya inuu diinta u gafo ee aan ku daawano muuqaal iska soo duub ma jeclayn muuqaalka aan la wadaaga laakiin waa in la wadaagaya sababtuna waxay tahay in qof kasta oo maanta Cabdi Cajuun dad bil aadan u maleeyo inuu ka qoosto in qof kasta Cabdi Cajuun maanta ku taageeraya qabyaalad oo ka samr baan muuqaalkan kula wadaagaya waxa daawatan Cabdi Cajuun oo inta hees daartay marqaansan isagoo cabsan oo ka dhacsan inta hees daartay dhahaya gabar Soomaaliyeed oo fanaanad aan jeclayn magaciisa soo qaatay heesiis inta dhageysta dhahaya nabiyadii baa heesaysay nabiyadii yaa heesaysay dhageysta subhanallah bal muuqaalkan daawada idinka yaab doonay ترى أمس واحد نبيدي بس سبحان الله يفي سمر إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ما حد يكرنا قفك النوع عاسة حتى إن سوق هذا ما أنتي waxaan muuqaalkiisa idin tusaya qofka noocaas inuu agtiina ka dhintaba in hadal uu yiraahdo aad ka quusataan dannimadiisa iyo damiirkiisu waa qof diintii u gafay oo islaamnimadiisa shaka ku jirta okay balinkaas Safiitusmo ka qaba weydeene iskaba dhaafo Safiitusmo qabyaalad darteed waxa ka qaba weydeene balinkaas diinta caayay wax ka qabto oo diinta nooga dhacash meel ka saar wax kale iska dhaaftaan okay waxa ila daawatan sidoo kale isagoo jeesiya oo noocaah ku jeesiya dama muuqaalkiisa ila daawado akhyaarta sharafta aad baan salaamaya halka caawa maanta waxa ila socdo saaxiibkay Maxamed Galaad iyo hal dhinac dhimbiilo gaarigooda waa abaan Galaad kullu dadku in badan baa horta niyow suugaanta taqaan laakiin wajiga aqoon kawdi dadka wax la yartay abaan Galaad waa ninka waxa saaxiib doonayna inaan ku weydiiyo heestan uu qaado ninka fanaanka ah la tirada hadan bini aadan helay bashaas oo furan iyo eriga anigu waan yar diido waxaan
ninku berigii hore wuxuu la joogi jiray waa sidii tolo dad hore iyo waxba xumeynaya baan isla berigii hore dad wuxuu la joogay baan isla hadee ku kulaato maxawiyaan ma garanaysaa maxaa imkaan binaadan helay keenay marka hore dad kol ma garanaysaa marka boon ergaa bal looga sar iyo wax weey bilaadantimadu waa maan haye ya haye ya waxa lagu amaanay ku sareeyaa oo bilaadantimadu haye marka adiga u dhaadubeen bilaadan ku jirtaa wuxuu isleeyahay abwaanka ku leex oo nimcaan la carro inuu ka dhigo qof macnaha u gafay dad u gafa gaar أنا وأجهي وجد كان ضد بدن من إسفهم يا لجابة لكن وأجهي مركور بالعادي لما تشوفين مياه ضد بوك الدرة يا معناه ولدن لي مركور بالعادي لما تشوفين مركور لي وهيس ولا يسوي تجمع ما حد يركن عادي نك ضد كده عنا يسو توس بالو هذا بس جبنا سيل واحد حق تقريه تقنا ما مرنا ولا القالي ولا مرنا ولا هاي هذا بالعادي الموسى تشوف ما حد نك ضد وحق لنا يسو ضد وجويسة وهذا رنت كل شيء ضد سومالان وجوسو تشيدين يسا أدو أود مليد مياه كري إن مجا سومالان سنا وقولوا تماس ودول وركستي تيجي السومالي من قف الشخص هذا مود السومالي وادات هرمر جاري وادات تجي وادات أيجو عرض إلهي كله شو بس السومالي هل مجاله هل تجمل مودار واديك هيس اللي يجود بي وأرنت ذي معانه اللي كهالي سواق هذا نية أوله مركور ضل موسى شو بمياه تاستوش كونه قم مثلين كذا تسكت عكرتو توس وقاعد دين تاني واحد عايز أنا نبي نبتشوج ونكون شدنا هرجيس نشوفات كفانا يسا سكتشوب دمرة سكتشوب ماشي هرجيس سكتشوب لكن وحو الدنيا ساس بقولك سنة الدنيا اوكي لكن بل الله waxaan ku qaad in aad la bintani qosalka aad ku sii jiri doonaan inta ku sheegaya tooshkeyguna kaama xari doona ilaa ay safiitusmo aad meel ka soo saartay diintan uga fiinaa jujuus aad ma santa daawashada muuqaalka walaal ka shaqo say muuqaalka bixisal